sheekh qofka aan muxrim haysan gabadha qofka haweenkan muxrim lahayn sidoo ma xaji karaya alxamdulilah arinta taasi horta sida guud ma xaji qofka dumarkii haddii aanay haysanin maxram ma xaji karayso waayo shuruuddii xajka shardi ka mida baa ka maqan oo ah maxramkii maxramkaasi waxa weeyaan waa mid waajiba oo loo baahan yahay oonay u bannaanin qof dumar inay habeen iyo maalin waqti ah ay dhaxdo bikayri maxram la-aan waqtigan xaadirka culamada balba waxay ku fatwoodeen in qofka dumarkii waayo markaa taa hore haddii aanay maxram haysanin xajkiiba markaa waajibba kuma noqonin waxba ugama baahna culamada waqtigan xaadirka in ka midi waxay ku fatwoodeen haddii suxbatun aamina inkastoo ay raad horeba xagga kutubta ay lahayd haddii suxbad aamina oo gruub laysku raacayo oo gruubkaasi ay yihiin dee dad aamina oo mudakara oo ilaalin karaya qofkii wax la qaban karaya way raaci karayaan imka xitaa safaaradda sacuudiga oo kale waxay yidhahdaan xaj gruub oo kale bay raaciyaan dadkii aan xaj maalan ba aan maxram wadanin way fiisada iyaguba u soo saaraan oo marka gruub ahaan baa laysku raacaayo maxram la-aan baa gruub ahaan laysku raacaa laakiin waxaa labada xaqa u dhow oo daliilka u dhow in qofkaas bilaa maxramka ay tahay inay iska joogto oonay xajkaa tegin haddii ruqsadda culamada badh ay ku fatwoodeen ay qaadanayso oo xajka gruubkaa raacayso aaminka ee suxbadaasna dee taasna waa meesheeda laakiin iyadoo xoolaheeda iska haysata oo iska joogta bilaa maxram oo iska tasbiixsata ama lacagta ku sadaqaysata ayaa uga fadli badan inay xajka tagto waayo xajku waajib kuma noqonin hadmaba ninkii maxramka ahaa walaalkii adeerkii abtigii zawjkii uu meesha ka baxay wallahu aclam su-aasha kale waxa weeyaan